wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanada baarlamaanka Galmudug maanta kulan ay ku yeesheen caasimadda maamulkaasi ee Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ay mooshin ka dhan ah ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug Cali Gacal Casar 89 xildhibaan ayaa soo sheegaya in mooshin ay saxiixday kana soo gudbisay gudoomiyaha in xilka qaadis lagu sameeyo xildhibaanada ayaa maalinta bari ah la soo sheegaya in ay u balansan yihiin in mooshinkaasi laga hor akhriyo golaha baarlamaanka isla markaana ay cod u qaadaan gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casar si ay xilka uga qaadaan xildhibaanada Galmudug ayaa gudoomiyaha baarlamaankaasi ku eedeeyay xil gudasho la'aan iyo in uu sharciga baal maray madaxda sare ee Galmudug ayaa u muuqda kuwa khilaaf uu ka dhaxeeyo kadib markii madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxda maamul goboleedyada ay go'aan ka soo saareen shirkoodii magaalada Kismaayo kaas oo xiriirka ugu jireen dawladda dhexe ee dalka waxaana arintaasi ka soo horjeestay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug iyo waliba gudoomiyaha baarlamaankaasi taasoo u muuqata in khilaaf hor leh uu soo kala dhaxgalay madaxda sare ee Galmudug